السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي أصحابتي ذا قالي ولا له شرفت له وولاشين إلفيس جنال كأجدا ونسان وإلفيس فاميلي جنال عاد أيان إذن جعلها إله سبحانه وتعالى إذن بركيو إلهنا إذن إلاليو ملك استقد كسرنتهين الله سبحانه وتعالى إذن حفظ بإذن الله الكريم دمانتين إله سبحانه وتعالى هنوذ إلاليو بإذن الله الكريم سيبوا ولا له وقربها aad baa ugu ducaynayaa ilaahay subxaana watacaala ha ilaaliyo fitinta iyo dhibka ka jiro ilaahay subxaana watacaala ha ka ilaaliyo awlaadoodana awlaad wanaagsan oo ehludiina ilaahay subxaana watacaala ha oga dhigo biidnillaahi kariim dhammaanteenna ilaahay awlaada ha noo wanaajiyo intii haysato allah u barakeeyo oo u wanaajiyo intaan haysanin ilaah subxaana watacaala ha siiya awlaad barakaysan biidnillaahi kariim halkan waxaan rabaa maanta waxaa idiin wadaa alaab iga wada sugayseen oo muddo la isoo weydiinayay oon la soo daahay aad ayaan ula soo daahay bilxaqiiq insha allahu tacaala alaabtan dalabkeeda wuxuu u bixi doonaa hargeysa wuxuu u bixi doonaa muqdisho biidnillaahi kariim cid walba oo u baahan meesha ay joogto insha allah way igu tegaysaa alaabtan biidnillaahi kariim walaashin ilfis muddo ayaa lahaydeen ilfisay aawey maxaa kugu dhacay waad habsaantay waad daahday maasha allah waa idinkeena maanta biidnillaahi kariim ka bogasho wacan insha allahu tacaala aan isla aragno waxa aan idin keenay insha allah halkan waxaa inkugu jiro waa iftiin dumar waaye sidaa wada arkaysaan waa iftiin dumar inaa wada aragtaan ayaan filayaa waa iftiin dumar waa kareemkii maasha allah kaanada ahaa biidnillaah haddaa haar laheyd haddaa madmadow laheyd haddii wejiga uu kaa bahdelan yahay uu kaa qayiran yahay oo qorax kaa dishay intaba biidnillaah halkanna maxaa inkugu wadaa halkan waa bucbuc nafaqo face bucbuc nafaqo face waaye nafaqadan maasha allah wejiga way cayirinaysaa maasha allah bay ka dhigaysaa wejiga nafaqadan wayna cayirinaysaa biidnillaahi kariim kaala iska arag waayaan ku dhah nafaqo cajiib dee walaashin ilfisan horaa inkugu sheegay aniga waxyaalo badan ayaan soo geliyey weli ma arag wax igu soo laabtay oo la idhahayo ilfisay kamaana faa'iidin wax la idhahayo weli ma arkin waxaana jeclahay wax walba oon idiin soo gelinayo hadda nafaqadan bucbuc face way buuxday taa intaas yartaa ku jirto iftiin dumar oo wejiga ana intaas ayaa ku jirto aniga ayaa isticmaalo maasha allah haarihii ayaantii aan umusha kasoo baxayna waad i wada weydiiseen ilfisay wixii aad umusha markaad ku jirtay isku hagaajiso isku habaysay nookeen aa igu dhahdeen insha allahu tacaala waana inkugu maqnaa biidnillahi kariim aniga xaasid ma ihi insha allah waxaana rajaynayaa alaabta aan idiin keenay insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa dalabkeeduna isku soo daba dhici doona insha allahu tacaala ayaan aad u rajaynayaa maasha allah meel kastood ku sugan tahayna insha allah waa lagugu keenayaa iftiin dumar oo wejiga e waaye maasha allah markaa marsanaysid iftiin dumar oo wejiga aa marsanaysid wejiga waa inaad nadiifiso wejigoo nadiif ah oo weliba biyo leh oo qaqabow leh waa inaa marisid biidnillaahi kariim maxaan kaloo idiin keenay iftiin dumar oo boodhiga ah ayaa idiin keenay iftiin dumar oo boodhiga ah maasha allah iftiin dumar boodhiga waaye madmadow ifirtinki qoraxda hadday lugiyi gacmaha qorax kaa dishay hadday jacjac ku yihiin hadday ku qalalan yihiin intaba maasha allah waa wax lagaa hubo oo sax ah waxaan hubin inta kuuma keenayo insha allah bucbuc face nafaqada bucbuc face waa laba nooc waa laba caagadoodaan ka wadaa tan way yarta caagadan tanna waa caagadan weyn maasha allah oo cabaarka ku haynaysa waaye maasha allah tanna waa caagadan yar sidaan wada ognahay mujudan maasha allah waayo qofna caagad weyn ayuu rabaa muddo haynayso qofna caagad yar ayuu rabaa maasha allah waxaa kasii daran idiin keenay wallaahi anaa idinka hubaan ku dhahay anaa idinka hubo oo bilxaqiiq inkaga hubo maasha allah caagadeeda yarta waa tanaa haddaa yarista u baahanta waa dalban kartaa haddaa weynta u baahanta waa dalban kartaa hadduu madaxaada daadanayo uu jajabaayo hadduu adag yahay oo jilciso aad isticmaali jirtay qadka ka bixinaysaa jilcisada isticmaali jirtay waa iska dhaafaysaa jilciso timo hurdo maasha allah israacsan nadiif gogo-aynin qurux badan oo madow weliba insha allahu tacaala haddaa xataa timo cad laheed timo madow oo qurux badan insha allahu tacaala laakiin anaga soomaali haddaana dhibkanaga ma taqaanin waxaana iibsanaynaa waxaa laga yaabaa beri iyo maanta markaa marsano waxaa ma tarayse والله أنا سيدا مركان تشابيني
caagadanaan dhameeyey hawadaa ku cuna caagadaas markaan ogaaday caagadaas ay ugu dhammaatay oon ogaaday saliid la hubo inay tahay ayaa idinla soo wadaagay oon soo bandhigay asxaabteyda qaaligay ma rabo inaan waxun idiin keeno insha allahu tacaala hadda dalab baa agteyda yaalo wuxuu u socdaa biidni illaahi kariim wuxuu u socdaa kambalo dalabkan insha allah kambalo ayuu u socdaa dalab baa hadda agteyda yaalo saliid walaa bucbuc nafaqo oo caagadahan waaweyn ee weliba iyo iftiin dumar oo wejiga ah iyo iftiin dumar oo lagu hiya gacmaha ah intaba kambalo ayay u socdaan maasha allah walaalo kambalo joogo oo igu xiran ayaa soo dalbaday oy hadda u socdaan maasha allah walaashiin ilfis waa idiin keentay alaabta aad ka wada sugayseen in badan ayaana iga sugayseen alaabtan lambarka aa igala soo xiriireysaan shaashada ayaa idiin soo saari doonaa insha allahu tacaala lambarka cid rabtona commentiga way igala soo xiriiri kartaa waxay iga soo qori kartaa laakiin lambarku waa muhiim waayo sababtita lambarka waxbaa lagu soo dalban karaa laakiin comment waxba laguma soo dalban karo mideeda kale inta badan commentiyada way fara badan yihiin dee anaguna dad bila aadanaa nahay waxaa laga yaabaa inaadan jaanis u helin inaad akhriso marka dhinaca whatsappka insha allahu tacaala dhinaca whatsappka heegan ayaa u ahay waana idinka qaban doonaa insha allahu tacaala wixii aa u baahantihiin dhinaca whatsappka igala soo xiriira insha allahu tacaala waxaa kale oo idiin soo wadaa hadduu ilaahay subxaana wa tacaala ka raali noqdo alaabtii loogu talagalay jiifka maasha allah markaa seexatid alaabtii kala kacsanayd maasha allah oo lagu dhaashanayo markii la qabaysto aa idiin soo wada saas loogu dhaashanayo saas jirka dhan aa ku dhaashanay sidaa idiin soo wadaa insha allahu raxmaan walaalahayga sharafta leh aad baa idiin jeclahay waa walaashiin ilfis oo dalabkii aa ka sugayseen idiin keentay sidoo kaleeto ayaan dhaweyd waxaan soo bandhigayay saliid la marinayo lugaha iyo gacmaha oo iyo wejigaba xataa la marin karo oo babi'inayso qalaylka kaa bi'inayso qalaylka ee kaa bi'inayso hadduu jirkaada yacni qalalan yahay oo kakan yahay yacni shaqo aa ku daashay oo kaleeto muddo aa shaqaynayso oo kale iyadana najiido weyn ayaan ka keenay saliiddaas oo la hubo aan ka keenay wallah saliiddaasna insha allahu tacaala iyadana waa diyaar cidda u baahan way soo dalban kartaa meel kasta oo joogto oo lagu keenayaa insha allahu raxmaan kareemkaana koley qofkii marsado asaga ayaa kasoo sheekeyn doona insha allahu tacaala feedbackiisa ayaan soo dhigi doonaa insha allah iyo warbixinta ay kasoo dhiibaan dadka aniga koley hadda war waaba ka keenayba sax waaba hubaabo haddaan hubin inta maba soo dhigi lahayn maasha allah walaalahayga qaaliga halkaas ayaa igala xiriiri doontaan lambarkana shaashada ayaa idiin soo saari doonaa insha allahu tacaala halkaas ayaa kasoo qoranaysaan lambarka aa iga heli kartaan insha allah cid walba oo ii baahan iyo ciddii talo ila wadaagayso ciddii su-aal qabto ciddii rabto inay qiso ila wadaagto intaba lambarka ayaa igala soo xiriiri doontaan insha allahu raxmaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baa idiin jeclahay meel kasta ood ku sugan tihiin